wallaahi adeerow soomaalida deegaan kasta inta isla deganaa qabaa'il u ah colaadihii hore oo annagu aan naqaanay oo daaqa iyo biyaha iyo ku salaysnaa iyo wax ka agdhow oo dhaqanka ahaa waxyaabaha isaga soo birbiray waayahan dambe siyaasado iyo waxbaa iska soo galgalay aniga hadda ma rabo inaan dimensionkaas kale ku fogaado waa tahay laakiin inaysan ka madax banaanayna waa tuhunsanahay wasiir qabiilada soomaalidu way islaayaan kuwo xigtay isku dhowba isku qabsada deegaan iyo maamulba isku qabsada laakiin marba haddaad ka dhawaajisay inaan siyaasadi ka maqnayn bal daahfur siyaasadda laysku hayo ee dadka degan xeeraa leh ma siyaasad adiga wasaaraddaada ka imanaysa dhinacaasi ku lug lahaa ma tan maamulkan galmudug ku lug lahaa haddii wixii la daahfuro waxaa dhici karta in xal loo helo cabdilcasiisow arrinkaa labaan u kala qaadi lahaa gogol nabadeed oo waxa laysku haysto iyo ciladaha iyo kala sheegashada lagu sheego waxaan qabaa meeshaasi waa u baahan tahay wax walba in daaha laga qaado dhexda la dhigo laakiin heerkan hadda aniga adigu aan ka hadlayno oo aan nabad ka hadlayno oo aan xabad hala joojiyo ka hadlayno oo aan dhiig joojin ka hadlayno waxa laysku haysto iyo qaabka ay yihiin waxaad moodaa runtii inay uga darayso marka waxaan codsan lahaa inaad iga cudur daarto waa tahay inaan gacanta sii geliyo hadda waa hagaag arrimaha siyaasadeed oo meesha ku jira waxa ay yihiin waa tahay marka wasiirka arrimaha gudaha adigay ku hoos imanayaan waxaan oo dhani in maalin kasta colaadi soo noqoto tobaneeyo dadna ay ku dhintaanna waxaa loo baahanayay mas-uuliyaddaas in qof loo saariyo marka ma leedahay mas-uuliyadda annagaa qaadanayno mar haddii siyaasad meesha ay ku jirto mas-uuliyaddii waan qaadanaynaa xalna waan raadinaynaa mise waxaad leedahay mas-uuliyadda cid kalea iskale in colaadani ay dhacdo oo dad maalin kasta dhiig uu halkaasi ku daato cabdicasiis horta mas-uuliyadda qaadashadeeda waxaan isleeyahay runtii ama wasaaraddan ama hay-ad kale oo federaala midna mas-uul kama aha inay dhacdo waa dhibaato degaan ka dhacday dad wada degan oo walaalaha dhexdooda ka dhacay mas-uuliyadda annagu aan qaadanaynaa waxa waaye marka inaan dadkii haddaan cod la gaarno iyo haddaan fadhi la gaarno iyo haddaan wada hadal la gaarnaba aan ku dadaalno wasaaraddaani waxay ka shaqayso shaqadeeda inay ka qabsato oo qayb ahaan ah dib u heshiisiin dadkii inaan ku dadaalno inay wada fadhiistaan walaalaha ahaa cid walboo ay u baahan tahay oo nufuud kulana aan ugu yeerno xalna ka dhex raadino mas-uuliyaddaasaan qaadanayna laakiin dagaalka labadii subaxnimo ka bilowday magaalo soomaaliyeed oo annagu anaan waxba ka ogeyn mas-uuliyaddeeda runtii waxaan u malaynaa waana garab marsanta marka de wasiir inaad ogaataan soomay ahayn oo idinku qaadaan mas-uuliyaddaasi istaraatiijiyadaasi colaadan iminka xeraaloo kalean ka hadlayno way soo noqnoqotay inaad adigu tegtid wasaaraddaadii lacag ahaan waad heli kartaan oo deegaankii tegtid dadkii isku keentaan inaad taa ka gaabisay xitaa soo ma noqonayso mas-uuliyad ay tahay inaad adigu madaxa saaratid wallaahi adeerow aniga wax madaxa la ii saaro iyo wax layga daayaba waxaa xaqiiqaah oo adiga iyo aniguba aan ognahay dagaalada soomaalidu sidii la doono loogama warqabi karo maayadii soomaalidu dhibi jirtay matag meelaad jeceshahay kuguma simadi waaye haddaan waxa sii ognahay oo aan ogaan karno in berri dagaal dhacaayo waxbaaad moog tahay labaad qaadi kartaa laakiin dagaalkan labada meeloodba wuu socday waa la kala dhex galay way qaboobeen haddana si sudfaahu labada meeloodba ku kacay kan xeraale iyo kan cadalada waa gartay marka dagaalkan cadalle meeshan u dhow buur dheere la yidhaahdo ka dhacay isagana dad badan baa ku dhintay marka ma idinkoo muqdisho jooga uunbaad colaadahaasi qabiilada islaynaya iyo dhiiggaad daadanaya inaad kor uun kala socotaan oo aad baaq ku saabsan nabadeed baan diraynaa mooyaane talo kale idinkuma haysaan talo kale waa haynaa cabdilcasiis baaquna waa lagama maarmaan markii xaadisadu dhacdo waxa ugu horeeya oo aad samayn kartaa ama aad ku dhiiran kartaa waa horta inaad tiraahdo wardadiihu muslimka ahi dhiiggiina kala badbaadiya ku sima ciddii taladaas idinla lahayd hadday dawlad tahay iyo hadday degaan tahayba war halaydinka soo gaaro in la yidhaahdo baaqa lagama maarmo wax ka qabadkaa kuu soo haray waxaan sidaan hadda warka kuugu hormariyey shalay iyo maantaba ku jirnay dadaal badan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ah iyo xiriiro iyo formuladii lagu geli lahaa arrimahaas
dejintooda. kii ugu dambeeyey oo shirkii ugu dambeeyey madaxweynaha iyo prime ministerka anigu aan yeelanana malaha saacad ama 2 saacadood ka hor ahaa inaan marka arrinkii marba hadduu dhacay lama reverse garayn karo, gadaal loona celin karo kaas. marka si looga nala gudbooni waa inaan toos u dhaqaaqno, baaq u dirno, ku degdegno, fariisino. waa gartay. arrintan balcad baan doonaya inaan su-aal kaa weydiiyo. xalay abaarihii 10kii habeenimo xilliga maxalliga ah waxaa degmada balcadood ee aad ogtay inaan muqdisho aanay ka fogeyn gudaha u galay maleeshiyada al-shabaab oo meeshaasi joogay oo wararkan helayno ay sheegeen markii dambe ay ka baxeen. idinkoo magaaladii muqdisho joogo degmadii balcadna aad ogtay intay idiin jirto awooddaasi iyo dhiiranaanta al-shabaab inay halkaa ku qabsadaan soo lama oran karo amnigii kasoko magaalada qaraxyada ka dhacaya muqdisho xitaa hareerihii muqdisho dowladdii soomaaliya waxba gacanta uguma jiraan? wallahi cabdilcaziiz waxaan isleeyahay arrinkaas waxaa kaa dhirgin lahaa wasaaradaha iyo hay-adaha amniga oo howshaas leh. waxaan rabaa inaan kugu baraarujiyo wasaaradda arrimaha guduhu hadda amni ma aha howlaha ay ka shaqayso. marka waxaan jeclaan lahaa su-aashaas in loo dhigo wasiirada iyo saraakiisha amniga oo ay sida tooska u khusayso. laakiin haddaan isku dayo waxaas maxay kula tahay marka wasaaradda amniga waanu la xiriirnaa miidiyaha iyo warbaahinta lama hadlaan, taliyaasha ciidamadu ma hadlaan. waxaad moodaa weli inaanay dowladdu kala caddayn markay dhacaan dagaaladan iyo qaraxyadan kooxda al-shabaab ay dowladda la beegsato oo cid mararka qaarkood ay warbaahinta ku adag tahay cid ay kala xiriiraan. marka haddaad leedahay anigu shuqulku ma lihi wasaaradda hala weydiiyo, miyaanay adigu ka wasiir ahaan ama ka mas-uul ahaan miyaanay wejigabax ku ahayn dowladda in kooxdii al-shabaab ay degmadii balcadee magaalada muqdisho albaabkii laga gelaya ahayd inay qabsato? cabdilcaziiz wallaahi adeero hadee isla jawaabtii horaan kuu celin doonaayo qof walba hawsha uu hayo uu mas-uulka ka yahay uu xoogogaal u yahay. maaha su-aal amni marka ay weydiiso inaan ka cararaayo, laakiin xaqiiqadaa waxay tahay xogta aada u baahan tahay in lagu soo gudbiyaana ahayd. sababta aan kuugu refergaraynayo dadka kalena waa intaas. maxaa lagu sheegay markaa balcad wixii ka dhacay? cabdilcaziiz bikulli ixtiraam, anugu dagaal iyo difaac midna kama shaqeeyo. waxaan ka shaqeeyaa federaaleyn iyo dib u heshiisiin. waxaan jeclaan lahaa inaad waxa aniga shaqadayda tahay